maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jira nin kaba iibiya oo tagay deegaan aad uga fog deegaankiisa si uu markaas uu kabihiisa uga iibiyo dadkii degnaa deegaankaas. balse halka caqabad ee meesha ka jirtay ayaa waxay ahayd in dadka degan deegaankaas gebi ahaantoodaba aysan xiran wax la yidhaahdo kabo. markuu arkay ninkii kaba iibiyaha ahaa xaaladda meesha ka jirta ee niyadjabka iyo quuska ah, ayuu si degdega u qaatay go'aan isdhiibis ah, isagoona markii dambe iskaga soo tagay deegaankaas. intii uu waddadiisa ku sii jiray ayuu wuxuu arkay nin kale oo kaba iibiye ahaa oo markaas ku sii jeeda deegaankii uu ka yimid. salaan kadib wuxuu u sheegay ninkii kale in dadka degan deegaankaas aysan xirinin wax la yidhaahdo kabo, uuna isaguna ka soo quustay xaaladdooda. ninkii kale ee kaba iibiyaha oo yaaban ayaa ninkii kale ee soo quustay wuxuu ku yidhi, oo hadda ma jira miyaa hal qof oo xirta deegaankaas kabo? taas micnaheedu waa inaan qof walba oo ku nool deegaankaas aan